madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xafiiskiisa wasaaradda difaaca dalka uu ku qaabilay danjiraha cusub ee dowladda Qatar u soo magacaawday Soomaaliya Xasan Xamza Asan oo warqadihiisa danjirinimo kaga gudoomay madaxweynuhu. danjire Xasan Xamza ayaa u mahad celiyay madaxweyne Farmaajo isagoo muujiyay sida ugu faraxsan yahay inuu noqdo safiirka rasmiga ah ee dowladda Qatar u fadhiya Soomaaliya waxaana 4 sano ugu dambeysay oo ahaa wakiilka Qatar u jooga Soomaaliya. sidoo kale danjire Xasan ayaa muujiyay sida dowladda Qatar ay uga go'an tahay adkeynta xiriirka ila leedahay Soomaaliya iyo sidii labada dal ay isaga kaashan lahaayeen dhinacyada ganacsiga, isgaarsiinta iyo maalgashiga. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo dhaweeyay danjirahan cusub ee dowladda Qatar ay u soo magacaawday Soomaaliya waxaana madaxweynuhu uu muujiyay sida ay dowladda uu hogaamiyo diyaar ugu tahay xiriir saaxiibtinimo adag inay la yeelato dal kasta oo daneynaya arrimaha Soomaaliya doonayana inuu ku garab istaago dowladda Soomaaliya la dagaalanka kooxaha nabadda diidan. waxa uu sheegay madaxweyne Farmaajo in dowladda Soomaaliya ay ku jirto dib u dhiska ciidanka qalabka sida si awood buuxda ay ugu yeeshaan inay dalka ka saaraan kooxaha argagixisada ah ee dagaalka kula jira. dabayaaqada bishii aanu ka soo gudubnay ayuu madaxweynaha dalku waxa uu ka gudoomay warqadihiisa danjirinimo safiirka dowladda Mauritania u soo magacaawday Soomaaliya. Ali Baasha Cabdullaahi, wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada